dadweyne waxay leeyihiin haddaad rabto inaad dhalinyaro noqoto soonka badso haddaad rabto bay leeyihiin inaad hore u gaboobin soonka badso haddii jidhku ku yaro duuduubmo bay leeyihin inaad rabto inuu kuu kala baxo waxba tajmiilka ha tegina soonka badsay leeyihin bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah allahuma wafiqna lima tuxibuh watardaah wabacd fasalaamu allahi calaykum waraxmatuh wabarakaatuh soonku dhaqanka qofka waxbuu ka bedelaa caafimaadkiisa waxbuu ka bedelaa nobel bricekii 2016 ee medicinka iyo human anatomiga maxaa lagu qaatay 2016kii soon baa lagu qaatay nin u dhashay waddanka jaban yoshinori osumo la yidhaahdo professorkaasi baa qaatay nobel bricekii medicinka waxaanu ku qaatay soonka wuxuu ku qaatay waxay qolada biologigu u yaqaaniin autophagy waa system jidhkeennu repairing buu sameeyaa jidhkeennu isagaa dib isu kabo isu repair gareeya marka laba system baa jira oo unuguu sameeyo oo qaabkuu dib isugu sameeyaa haddaynu aragti guud ka bixinno waxay tahay masalan haddaynu gaadhi ka soo qaadno gaadhigu hadduu kharaabo maxaa la sameeyaa haddii uu kolba aad samayso oo cilladoobo marka dambe waxaad tidhahdaa warkan dhaqaalaha gelaya waxa ayaa ka badanba samayntiise tuuro mid cusub iibso socankaa maaha system jidhku wuxuu leeyahay system odhanaya unuga marka inputkiisu ay ka badato outputkiisa energyga iyo wuxuu isticmaalaya marka uu ka bato shaqada uu qabanayo waxaa la yidhahaa unugan ha laga takhalluso waa la dilaa dabeetana markuu unugaas gaboobay ama tamar darreeyey ama cayn ka noqday la dilo inta la furfuraabaa sbeer baad laga dhigaa jidhka haddana dib uu isticmaala qayb labaad baa jirta oo ah haddii unuga wax ka midi cilladoobaan masalan gaadhigii aad wadatay baaterigaa fadhiistay maxaad samaysaa ma gaadhigaad tuurtaa mise waxaad tijaabisaa inaad baateriga ka tuurto oo baateri kala geliso autophagy systemku wuxuu sameeyaa unugu marka qaybay cilladowdo qaybta cilladowday buu ka tuuraa dabeetana waa loo repair gareeyaa qaybtii la tuurayna dib baa loo burburiyaa dabeetana waxaa laga dhigaa wuxuu isticmaali karo jidhku idan waxay leeyihiin systemkaasi inuu si xooggan u shaqeeyo waxyaabaha kiciya ee dib u soo qaada waxaa ka mida bay leeyihin soonka haddaad soonto bay leeyihin systemkan shaqadiisaa fiicnaanaysa dadweynis waxay leeyihin haddaad rabto inaad dhalinyaro noqoto soonka badso haddaad rabto bay leeyihin inaad hore u gaboobin soonka badso haddii jidhku ku yaro duuduubmo bay leeyihin inaad rabto inuu kuu kala baxo waxba tajmiilka ha tegina soonka badsay leeyihin yacni kullu dalik waxay leeyihin waxaa tari kara soonka waa soon sideeya markaa awal waxay odhan jireen cunada iska daayo liin macaanta cab waxaan iska daayo biyaha cab waxaan iska daayo wuxuu leeyahay professorkaasi waxa ugu fiican 16 saacadoodna inaad soomanaato 8na wax cuntid 16 saacadood ee aad soontay sida rasmiga aad u soontay bay leeyihin unugyada liita way dhimanayaan unugyada awalba tamarta daraa shaqada way ka baxayaan kuwa systemkanna waa la kicinaya waxyaabaha kiciya gaajada ka mida bay leeyihin systemkanna waa la kicinaya systemkaasi markaa wuxuu samaynayaa inuu wixii unugyada liita ama repairka u baahan labada shaqaba inuu qabto taasi waxay keensanaysaa bay leeyihin haddaad caafimaad rabto soonka badso weliba ra'yigiisu wuxuu yahay waxa fiican bay leeyihin toddobaadkii inaad 2 maalmood soonto shareecadu maxay qabtaa toddobaadkii maxaa laynagu yidhi waxaa idin sunno ah inaad soontaan maxay isniin iyo khamiis gaalka jabaniiskii wuxuu leeyahy waxaa fiican toddobaad kasta inaad 2 maalmood sidaasi yeesho waxay leeyihin haddii kale inaad bil isku bixiso bay leeyihin ciddaan labadan soomaynina maxay soontaa bil bay soontaa idan waxay leeyihin soonku kow iminka waxay qabaan soonku inuu yahay waxyaabaha ugu waaweyn ee caafimaadka laga qaado waxyaabaha ugu waaweyn ee qofka caafimaadka qaba caafimaadka u kordhiya dad badanoo xanuunsanayana xanuunada ay kaga takhallusi karaan ilaa xad ay hadda tijaabooyin wadaan ah
haddii soonka loo badiyo dadka kasar ku dhaca ama waxaana ku dhacaan ma ka bogsan karaan aaraadaasa hadda taalloo la wadaa nin caalima muslima wuxuu qoray kitaab la yidhaha mucjisatu siyaam dabeetana waxaan sidhi buu yidhi war kitaabkii dib u cusboonaysii bal hadda buxuusta soo baxday eeg 3 sano gudahood buu leeyahy 900 oo research oo cusub oo jaamacaadka dunidu sameeyeen baan helay buu leeyahy oo ku saabsan soonku ka warramaya waxay leenahay markaa soonku caafimaad ku hagaajiya wuxuu kaloo hagaajiyaa dee dadka dhaqankooda oo dhan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahy man lam yadac qawla azuuri waalcamala bihi qofkaan iska daynin beenku hadalka iyo ku camalfolkiisa aan iska daynin ilaahay baahi uma qabo gaajadiisa buu nebigu tilmaamaya macnaheedu waa maxay soonku waa training la rabo inaad gasho oo intaad trainingkaa ku jirto in noloshaada wax iska beddelaan maxaa iska beddelaya masale nebigu wuxuu leeyahay haddii lagula dagaalamo waxaad tidhaahdaa maxay innii saa'im waxaa la rabaa 11 biloodoo kale sidaad u dhaqmi lahayd inaad trainingkan u gasho ninka askariga ah markaaynu rabno inaynu qof askari ka dhigno maxaa la sameeyaa maa la wacdiyaa mise waa la tababaraa daynana ka warran waxbaanu kuu sheegaynaa dagaalladu waa wax adag waa la haraadaa waa la gaajoodaa dagaal baad geli doontaa dee waa inaad markaad dagaal gasho nin raga noqotaa sidaa nin ragga ma ku noqonaya may kula tahay maya waxaa la gelayaa training dhab ah waxaa la geeyaa duruuf gaajo iyo haraad iyo buuro iyo waa la soo ciqaabaa si uu u barto adkaysiga ah hadhow markuu nolosha ka qayb gelayo ama dagaalka dhabta ah markuu galo inuu noqdo maxay qof adag ramadaanku iyo cibaadaadku noocan oo kale ay ka tirsan yihiin waa training qofka la siinayo oo sanadkii mar uu gelayo oo kadib la rabo 11 biloodo kale isagoo bartay dulqaadka isagoo bartay waxbixinta isagoo bartay cibaadada isagoo bartay isku xidhnaanta waa midnimada muslimiinta wax tilmaamaya caalamul islaami oo dhan ama dunidoo dhan waxa jooga muslimiin ay mar qudhana wada soomaan mar qudhana wada afuraan bil qudha soomaan bil qudha afuraan idan waa wax isku xidhaya dadka muslimiinta ah